السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرين جنال كمركلة سود وواضح أدي هذا ومهتسنتهين مقال كان وحربا إن ندي كل وداقه مددي شنتي مع الموضع اللي صار فيه هو الجلدي عندما آيس أي كودين مجالوين كمتانها مينيابوليس يا سين بول أو لوجو مقدري Operation Twin Surge إلا يحد إمس قف أي كوكبتين إمس أي الصومالية آيس أو قار كمدة سورة ضدك الصومالية إلا قبتي شاعشي يولب dambiilayaal in ay yihiin arrimahaasi waan idin la wadaagayaa sidoo kale isku aadka koobka adduunka ayaa goordhow lagu soo gabagabeeyay xarunta Kennedy Center oo ku taala caasimadda waddanka Mareykanka ee Washington DC kooxaha sidee isugu aadeen koobka adduunka oo la balaariyay sanadkan Canada iyo Mexico iyo Mareykanka ay si wada jir u martigelinayaan madaxweyne Trump oo ka qayb galay iyo madaxda wadamada Canada iyo Mexico oo iyaguna joogay kooxaha isku sida ay isugu aadeen ayaan sidoo kale idin la wadaagi doonaa balse marka hore soo dhawaada shantii maalmood ee la soo dhaafay laga soo bilaabay Isniintii oo kooda bisha ahayd magaalooyinka mataanaha ee St. Paul iyo Minneapolis waxa ka socday howlgal ballaaran oo ciidamada ICE ilaa iyo 100 askari ciidamadan ay ka wadeen oo ay sheegeen in dadka sharci darrada ah gaar ahaan kuwa maxkamaduhu ay amarka ku bixiyeen in wadanka laga masaafuriyo iyo dambiilayaasha ay dabagal ku hayaan taasi oo bulshada Soomaalida ah ee ku nool gobolka Minnesota cabsi iyo qalqal weyn ku abuurtay gaar ahaan magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul hogaamiyaasha dadka Soomaalida ah sida xubnaha la soo doortay culamaa u diinka iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka iyo maayirkuba arrintaasi si weyn ay uga hadleen caydii iyo aflagaadadii uu madaxweyne Trump u jeediyay Soomaalida gobolkaasi gudoomiyaha gobolka maayirka Ilhaan dhamaantoodba arrimahaasi waa ay ka hadleen oo eedeymihii kala duwanaa uu jeedinay haddaba ilaa iyo 5 maalmood ay la soo dhaafay tirada dadka la soo qabtay maxay yihiin ICE waxa ay sheegtay inay ku bartilmaameedsanayso worst of the worst kuwa ugu xun ayaan ku bartilmaameedsanayna ay yiraahdeen ilaa ay hadda wararka la helayo waxay sheegayaan oo ICE website-keeda laga helay in 12 qof oo kaliya la soo qabtay waa 5 maalmood oo la soo dhaafay oo cabsida iyo qalqalka badan ay ka jirtay magaalooyinkaasi 12 kaasi qof 5 kamida waa Soomaali 6 waa Mexican hal qofna waxa uu dhashay wadanka El Salvador marka qaar kamida dambiyada ay ku eedeysan yihiin sawiradooda iyo magacyadooda ayaa ICE website-kooda ay soo geliyeen dhinaca Soomaalida hadii aan eego waxa ugu horeeya wiilkan la yiraahdo Cabdiqaadir Shariif Cabdi wiilkan waxa lagu helay ayaa la leeyahay musuqmaasuq sidoo kalena in uu hanti xaday in gaari in uu xaday iyo sidoo kalena in uu ku xadgudbay in probation kala duwan qofka shuruudaha lagu sii daayay xabsiga marka laga daayo uu ku xadgudba waaye inuu ku xadgudbay ayaa uu ku eedeysan yahay wiilkan marka dadka ay ICE xirtay ayuu ku jiraa waxa jira sidoo kale jira Sahal Cusmaan Shidane oo isagana lagu helay in uu falal galmaah uu kula kacayo anshaxuma ah ilma aan qaan gaarin oo da'doodu 13 ilaa iyo 15 ay u dhaxayso marka ilaa hadda labadaasi qof ayaa dad Soomaaliya sawiradooda la shaaciyay xitaa shalay waxaan arkayay nin Soomaaliya oo diiday magaciisa in la wajigiisa in kaamarada uu tuso laakiin magaciisa Cabdul lagu soo gaabiyay in uu leeyahay xaaskeyga ayaa la xiray oo muddo 20 sano halkan igula nooleed oo caruur ku dhashay isla markaana horey waxay ahayd dadka wadanka sharci darrada ku soo galay marka iyadana waa la xiray qareenkeeda ayaa la doodayay marka tirada hadda la xiray marka wax la leeyahay waa 12 kaasi qof oo 5 Soomaali yihiin 6 Mexicana iyo sidoo kalena hal qof oo wadanka El Salvador u dhashay ciidamada ICE waxay leeyahay anaga howlgalkeena waxa uu ku wajahan yahay dadka maxkamadda ay ku amartay in wadanka laga masaafuriyo ee dadka dambiilayaasha gaangiska inaan gacanta aan ku dhigno marka ilaa ay hadda 12 kaasi qof ayaa la sheegaya howlgalkuna wali waa uu socdaa inta uu qaadan karo lama ogo kolay ciidamada ICE muddo ay joogi doonaan sida aan u maleynayo magaalooyinkaasi ICE-na kolay way soo gudbisaa warbixinada markastaba dadka iyagu ay qabtaan marka ilaa hadda 12 kaasi qof ay sheegeen 5 maalmood oo la soo dhaafay in howlgaladaasi ay ku soo qabteen dhinaca kale koobka adduunka waxaan ognahay sanadka soo socda bisha July waxa uu ka furmi doonaa in martigelin doona si wada jir ah Mareykanka Canada iyo Mexico 3 magaalo oo ku taala Mexico 2 ku taala Canada iyo 11 ku taala Mareykanka ayaa si wada jir ah u martigelinaya koobka adduunka sanadkan waa la balaariyay 48 kooxood ayaa ka qayb galaya 32 halkii markii hore uu ahaan jiray marka 48daasi kooxood waxa loo kala qaybiyay 12 group oo kooxdiiba ama groupkiiba 4 dal ay galayaan marka isku aadka ayaa looga dhawaaqay xarunta Kennedy Center madaxweyne Trump waa uu joogay waxa uu hayay magaca USA oo isagu wadamada martigelinaya kamida
madaxweynaha waddanka Mexico Claudia Sheinbaum waa ay joogtay iyo ra'iisul wasaaraha dalka Canada Mike Carney sidoo kale waxaa ka qayb galay xubno caan ah oo ciyaartooy ahaan jiray sida NFL-ka oo Tom Brady oo ka qayb galay Shaquille O'Neal oo dhinaca basketball-ka ah Kevin Hart oo actor ah waan arkayay marka xubno badan oo caan ah ayaa ka qayb galay Rio Ferdinand oo horey Manchester United iyo xulka qaranka ugu ciyaari jiray Ingiriiska ayaa kamid ahaa dadka xiriirinayay isku aadka koobka adduunka marka sidan ayay isugu aadeen waxaa jira 6 kooxood oo la sugay ilaa hadda 42 kooxood ayaa koobka adduunka u soo baxday 42 dal aan iraade bisha March ee sanadka soo socda waxaa jira 12 kooxood oo ciyaaraya oo 6 kamid ah ay ku soo beeri doonaan 42 si 48 ay u noqdaan marka boosas banaan ayaa jira oo wali aan la buuxin laakiin sidan ayay dalalku isugu beegmeen oo koobka adduunka ay u wada ciyaari doonaan groupka A waxaa ku wada jira Mexico South Korea iyo South Africa iyo sidoo kale group D playoff-keeda kooxda ka soo bixi doonta oo loo maleynayo Republic of Ireland inay noqon doonto maadaama ay groupkaasi ugu cadcadahay group B marka waxaa ku jira Canada Switzerland iyo waddanka Qatar iyo sidoo kalena playoff-ka A kooxaha ka soo baxa oo Wales ama Northern Ireland midkood ay noqon karto in ay ku soo beeraan groupkaasi oo sidaasi groupkaasi uu ku buuxsamo group C waa dhameystiran yahay waxa ku jira Brazil Morocco Scotland iyo waliba Haiti ayaa ku jira oo markoodii ugu horeysay ka soo qayb galaya koobka adduunka waxaa group D sidoo kale ma dhameystirna waxaa ku jira Mareykanka oo martikiliyaasha kamida Australia Uruguay iyo sidoo kalena playoff-ka isla reebka group C kooxda ku soo baxda sidoo kalena group E waa dhameystiran yahay Jarmalka Ecuador Ivory Coast ama Cote d'Ivoire sida u taqaano iyo Curacao wadan yar oo 150 kun oo qof ay ku nool yihiin oo markoodii ugu horeysay ka soo qayb galaya koobka adduunka ayaa sidoo kale ku jira group F ma dhameystirna oo Netherlands Japan Tunisia iyo sidoo kalena group B ciyaaraha isreebka playoff-ka dalka ku soo bixi doona ayaa ku wada jiri doona group G waa dhameystiran yahay waxaa ku jira Belgium Iran Egypt oo Mohamed Salah uu ciyaaro ognahay iyo waliba New Zealand oo iyaguna koobkan adduunka ee la balaariyay markoodii ugu horeysay ka soo qayb galaya group H sidoo kale waa dhameystiran yahay isagana waxaa ku jira Spain oo wadamada looga cabsanayo kamida Uruguay Saudi Arabia iyo sidoo kale Cape Verde ayaa ku jira group sidoo kalena I isagoo ma dhameystirno oo France Senegal iyo Norway groupkaas ama groupka geerida noqda iyo playoff 2ga teamka ku soo bixi doona ayaa wada ciyaari doona group J waa dhameystiran yahay Argentina oo koobka difaacanayso xidigooda caanka ah ee Lionel Messi uu ciyaaro koobkii 2022 Qatar ay martigelisay ku soo guuleystay ayaa groupkaasi ku jira Austria Algeria iyo Jordan ayaa sidoo kale groupkaasina ku jira group K isaguna ma dhameystirno waxa ku jira Portugiiska sidoo kalena playoff-ka oo koobaad teamka ku soo baxa Uzbekistan iyo sidoo kalena Colombia groupka L oo ugu dambeeya waa dhameystiran yahay waxaana hogaaminaya Ingiriiska oo isaguna sanadkan uu wato tababaraha dalka Jarmalka ee Thomas Tuchel oo iyaguna xulalka looga cabsanayo koobka adduunka inay ku guuleystaan kamida Croatia ayaa kula jirto Luka Modric oo u ciyaaro Panama iyo Ghana oo isaguna wadan Afrikaan ayaa ku jira marka sidaas ayaa koobka adduunka loo sameeyay marka sida ay kooxuhu u wada ciyaari doonaan iyo garoomada ay ku kala ciyaari doonaan iyadana waa la sameyn doonaa tikidhaduna waa iib sida aan horey u sheegay dad fara badan ayaa waxa isleeyihiin hadda tikidhada ciyaaraha lagu galay aad iibsato Mareykanka waad imaan kartaa arintaasi horey ayaan muuqaal uga sameeyay dadku waxay isku qaldeen tikidka aad diyaaradda ku soo raacayso iyo tikidka garoomada aad ku galayso oo ciyaaraha aad uga qayb galayso madaxweynaha iyo sidoo kale kooxda ama guddiga uu xil saaray la socodka koobka adduunka oo wasiirro fara badan ay ku jiraan oo wasiirka arrimaha dibadda uu kamid yahay wuxuu yiri tikidka ciyaaraha aad ku galayso oo aad iibsato ma ahan tikidkii kuu suura geli lahaa inaad Mareykanka imaato qofka interview ayaa laga qaadi doonaa marka haddii uu tikidka ciyaaraha lagu galayo uu iibsado bangigiisa maxaa ku jira imise maalmood ayuu doonayaa ciyaartay ayuu doonayaa inuu daawado magaalada ayuu doonayaa inuu ka daawado arrimahaas oo idil ayaa la weydiinaya marka qofku haddii uu u qalmo in la siiyo viisaha dalxiiska uu ciyaarahaasi ku soo daawanayo waa la siinaya laakiin marka ay u dhamaato waa inuu laabtaa Canada uma gudbi karo labada wadan immigration-kooda waa uu wada shaqeeyaa marka tikidka ciyaaraha lagu galayaa iibsanaya haddii fiisa la siiyo Mareykanka aan imaado waa isdhiibaya arintaasi ma soconayso horey ayaan muuqaal aan uga soo sameeyo dawladda Mareykanka waxay leedahay
qof kasta oo ciyaaraha u yimaada marka ama xulkiisa uu haro ama kooxdii uu u yimid ciyaarihii u yimid inuu daawado waa inuu laabta haddii uu laaban waayo waan qabanaynaa waan masaafurinaynaa maraykankana mar dambe uma ogolaanayno in qaab sharciya xitaa uu ku soo galo viisa dambe maraykanka looga ogolaado aad iyo aad u mahadsantiin